soo sheegay yiri calayhi salaatu wasalaam baaduru bil a'mal amalka saalixa u degdega war amalka wanaagsan u degdega buu nabigu yiri satakunu fitanan ka qita'i al-layl al-mudlim habeenka saacadba saacada ka dambaysa sida u sii kala mugdi badan tahay ayaa zamanka uu ka dambeeyana fitanta ayaa sii ziyaadi doonta buu rasuulku yiri waxa iman doonta buu nabigu yiri inuu ninku waa bariisto inuu galabaysto isagoo iimaan qaba waaguna u bariyo isagoo gaaloobay saaka waxa uu ku jiray a'maal ilaahay u dhaweynaysa galabtiina waxaad ku arkaysaa isagoo ku jira a'maasha dhanada lagu gaaloobayay يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا وبيأد ويان صباح دي خير بو كشغيني ودكو أركتي قلبتنا معاصيه شر بو كدح جرا اساس صحابه رسول رضوان الله عليهم اجمعين waxay eegi jireen baa leeyahay qofku marka uu dhimanayo wuxuu ku khaatimaystay eegi jireen baa leeyahay meel wanaagsan buu ku dhintay mise meel xun buu ku dhintay marka galinka hore muumin buu ahaa galinka dama sidoo gaal u noqonaya galinka daba khayr galinka hore khayr baad ku aragtay galinka damana waxaad ku arkaysaa baa laga yaabaa acmaashi dadku ay ku gaaloobeen inuu ku dhex jiro يبيع دينه بعرض من الدنيا ابو النبي يقول دينتي سيدنا يدخل دافسنيا دافير الدنيا عير waxaan xasuustaa bari jamaacan ka dirnay Djibouti khaarijina oo ilaahay dartu u socota wadanka Malawi la yiraahdo ku baxeen markaas loo sheego lagu yiri meeshan waxa wadankan xiraq qaxooti oo dad Soomaaliya ay joogan ayaa ku taala jamaacadii halkii bay ziyaarteen looma ogola meesha inay galaan masaajid u dhow baa lagu dajiyay way booqdeen dadkii bay la hadleen oday baa markaa jamaacadii galabtii u yimid oday ordaya markaas uu adeerayaal inankaygi ayaa gaalnimo qarka u saaran kaalaya ila booqdo oo ku xajiye diinta islaamka inuu iga gaaloobine oo adeer adigu muslim baa tahay Soomaalina waa tahay ha inankaaguna waa muslim oo adiga dhalay Soomaaliin ha hooyadiina muslimad Soomaaliyeed ha sidoo u gaaloobi todobaadkan qolooyinka ay hay'adu ay qaadayso ee dhulka gaalada loo dhoofinayo ayaa magaciisa lagu sheegay inuu ku jiro hay'aduna dadka ma qaado ma dhoofiso ilaa shuruud bay ku xidhaa shuruudda ay ku xidhaysa waxa kamid ah kitaabka quraanka inta dhulka loo dhigaa la yiraahdo ku joogso